السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان مسلمين تعالمك وحن إذن لأنهاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. إن وحنو إذن كل تلاقلني إن أنو إذن كل عيدنو برنامج قروح بدن أو قاردها الدونك فنانين تلوجو شعلا أنو مركزي خد كسوتو سيوجو شران وهالك سؤالي السوقان كلا دون أي كقاعدة دونان waxaanu barnaamijkaasi qayb ka yahay barnaamijyada Steve uu diyaarinayo oo rabo in uu kula ciido dhamaanba muslimiinta caalamka ee maalintan u dabaaldegaya iyo qurba joogta u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya. Hadda waxaan ku horeynayaa dalka Canada waxaana khadka si toos ah ugu jira fannaankeena codka baxsan ee Cawaale Aadan oo run ahaantii ah rugcada faneed fannaan Soomaaliyeed. marka hore Cawaale adiga iyo abwaanka qaaliga ee Carafaad wada jira ayaan idin salaamaya ciid mubaarak ayaan idin leeyahay waan dhownahay haboon ugaas ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair adiga iyo TV-ga ESTV iyo dhamaan shacabweynaha deegaanka iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee walaalahana ah iyo dhamaan muslimiinta waxaan leenahay idaafaha adduunka ku kala nool ciid mubaarak haboonagaas aad baad u mahadsantihiin waa idinka mahad celinaynaa fursadan qaaliga ah iyo maalintan qaaliga ah ee fursadana siiseen waxaan idin leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr adiga iyo dhamaan shaqaalaha TV-ga iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta caalamka ka kala joogan iyo muslimiinta oo waxaan leenahay ciidan ciideeda inagoo caafimaad qabna oo bashbash iyo barwaaqo ku jirna ilaahayna iska tuso insha Allah ta'ala aad baad u mahadsan tahay Cawaale iyo Carafaad waan idin mahad celinaya danka Cawaale ayaan u noqonayaa kadib markaynu soo dhaweynta ka soo noqono dhinacii su'aalahaagii ayaan u soo noqonayaa Cawaale waxa tahay fanaanka kaliya ee qarnigan 12aad ee aynu ku jirno ugu muuqa iyo magaca dheer marka waa maxay sirta ka dambaysa in fankaagu ilaa heerka uu gaadho haboonagaas aad baan kaaga mahad celinayaa runtii kulley bulshadana daawanaysa iyo fanka u soo bandhigayno ayaga muraayadii ah muraayaduna qofka eegaya bay tustaa sida uu weegyahay marka aad baan idinka mahad celinayaa runtii anigu munaasabkaas aad siiseen iskuma qabo laakiin waa idinka mahad celinayaa haddaan sirta aan ku duugan aan sheego waxaan u malaynayaa inay tahay waa fikirkayga waxaan u malaynayaa inay tahay macnaha ninna waa nin ilaahay hiba siiyay oo si aan dadaal ku darin ninna waa nin ilaahay hiba siiyay balse dadaal ku daray marka anigu sirteeda waxaan oran karayaa hibada ilaahay siiyay waxa ii dheer dadaal aad u fara badan u malayn maayo qof iga dadaal badan hadduu jirana ma badno aad baan u dadaal badanahay marka dadaalka ma malaynaya laakiin mansabka aad siisay waan ka qabaa waana kaaga mahad celinaya waad mahadsan tahay run ahaantii qofka bini'aadamkii inuu dadaalo oo markaas noqdo fanaan aad u dadaalo waa loo baahan yahay aad baad u mahadsan tahay ayaan ku leenahay su'aasha xigta ee aan jeclaysanayo in aan ku weydiiyo Cawaale bilowgii xilligii ay dadka inta ugu badan ay ku baranayeen waxaad fanka ku soo gashay album cusub oo markaasi muuqaal qurux badan loo sameeyay marka la eegana waxa tahay fanaankii koobaad ee soo saara album muuqaala oo dhameystiran laakiin albumkii mooyee ilaa hadda wax albana kaama hayno bal marka taa laftirkeyga ayaan jeclaan lahaa maxaa dhinacaasi album soo saarida caqabado ka haysta aad baad u mahadsantahay haboon su'aashaas laba su'aalood baan u kala dhigi laba qaybood baan u kala qaadi qaybta koobaad waa albumkii tusmo iyo qaabkii uu ahaa waa runta oo qof taariikhda ka war haysa ayaa tahay markii dagaaladii sokeeye dhaceen intayna dhicin dhulku oo magaranaysa nabadda ahaa fanaaniin badan oo waaweyn baa naga horeysay laakiin markii dagaalkii dhacay kadib waxaan ahaa fanaankii ugu horeeyay ee maqal iyo muuqaal duuba ee ku soo baxa sidii dagaaladii sokeeye 1990 u dhaceen wixii ka dambeeyay fanaan iga horeeyay oo maqal iyo muuqaal waliba heeso isagu leeyahay isku soo bandhiga ma jirin san qabo
haddaan su-aasha qaybteedii kale kaaga jawaabana waxa weeye waxaan u malaynayaa ilaa fanaaniinta maraykanka ayaa awal album soo saari jiray dee albumka Jay-Z laga waayay ee Beyonce laga waayay daan lagama heli karaan marka habboonay waxaan u malaynayaa waxa album loo diidayna waa labo kow albumku ka daal badan yahay single-ka marka daalkiina waa la yara nacay labana hadda waxa socda single-ka awal album baa socon jiray laakiin imika single baa socda daynaguna adduunyada ma la jaan qaadayna marka sida aawadeed baan single soo saarnaa heesa la'aan ma aha oo waxaan hubaa gaaska Sacuudiga ku jira iyo murtida Carafaad ku jirta murtida Carafaad baa ka badan marka heesa la'aan ma hayso laakiin daalkeeda ma aragtay baan yara diidana aad baad u mahadsan tahay Cawaale aadan waan kaaga mahad celinayaa sida habboon ee aad su'aasha uga jawaabtay runtii waxa tahay fanaan weyn oo guud ahaan dadka Soomaalidu ay markaasi ku hirtaan aadna u jecel yihiin suugaan kala duwan ayaad ku xustaa goobaha ay Soomaalidu degaan iyo deegaamada ay ku caanka yihiin ma jirtaa haddaba dadka deegaankan Soomaalida hees aad ugu tala gashay oo markaasi iyaduna kamid ah heesaha aad u qaadayso Soomaalida iyo goobaha ay degaan habboon cawada yaan sidnaa insha Allah ta'ala hees وأبوان عرفات سمية تكلا أو أبوان سهل سمية لو جرتها أو يدنا عن هذا كجالسين وايتو مستيدا لكن تي أبوان عرفات ين سيدنا إن وأنا ليلة مقلدونا كلي إن وحي أن سيدنا والليلة أركدونا دي بلشة أنا قيمين دونت إن أدبض ما تنتهي بالهستاسي إن أبوان عرفات وعريي إن aan wada daawano iyo codkii baxsanaa ee Cawaale aadan muuqaalkaasi quruxda badanna daawasho wacan
dooqiyo kalgacal baa igu daro dunji fiican lay waan doonayaa dooqiyo kalgacal baa igu daro dunji fiican lay waan doonayaa dadka lama sinoo waa duriyadii daa'uus lamood qalbiga dalbaday dahariyo goday jarar bay degaan dooliyo wardheer darmadaa u taal darmadaa u taal dadka lama sinoo waa duriyadii daa'uus lamood qalbiga dalbaday dahariyo goday jarar bay degaan dooliyo wardheer darmadaa u taal darmadaa u taal waan damacsaanee indhadeeraley dadabyaa la galaa erariyo danood durbanuga tuma erariyo danood durbanuga tuma waan damacsaanee indhadeeraley dadabyaa la galaa erariyo danood durbanuga tuma erariyo danood durbanuga tuma erariyo danood durban uga tuma erariyo danood durban uga tuma durban uga tuma erariyo danood durban uga tuma aad baad u mahadsan tahay Cawaale waan isku soo noqonaynaa haddana waxaan u gudbaynaa dalka Mareykanka waxaana khadka si toos ugu jirta fanaanada codka baxsan ee aadka u qiimaha badan Canab Cabdiraxmaan Indhadeeq marka hore waxaan ku leeyahay Canab ciid mubaarak waan kugu soo dhaweynaynaa ka qaybgalka barnaamijka ESTV soo dhawow habboonay aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaashay macaan qaali soo dhawow ciid mubaarak ciid alcaafiya aad baan kuu salaamaya waan dhowahay aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay sida sharafta iyo qiimaha leh adigu soo martiqaaday barnaamijkeena ciida aad baad u mahadsan tahay Canab Cabdiraxmaan waan kaaga mahad celinaynaa dhankii su'aalaha ayaan ku soconaynaa su'aasha aan rabo inaan ku weydiiyo wax weeye Canab intii aanad fanaanada noqon ka hor shaqooyinkii aad qaban jirtay balse markii aad fanaanada noqotay kugu adkaaday aanad qaban karin ma noo sheegi kartaa aad baa u mahadsantahay habboonay waxyaabihii aan samayn jirnay ciyaalnimadii weeyaan oo aanan karin haddii aan kaaga faaloodo waxaa ka mid ah shabadaankii la ciyaari jiray xadhigii la luli jiray maxaan ku dhahdaayey dhuumalayskii la ciyaari jiray candhacandhadii waxyaabo badan dee oo ciyaalnimadii la samayn jiray oo aan hadda la samayn karin waa sidaa aad baad u mahadsan tahay waa runta shabadaanka iyo xadhig ciyaarka iyo weliba ciyaarta caruurnimo marka la weynaado lama samayn karo balse waad fiican tahay haddii weli aad maskaxda ku sii hayso waa maalin ciideed aniga iyo adiga iyo intayna la midkaaba waynu faraxsannahay heesta aad ugu tala gashay ee barnaamijkan aad rabto inaad kaga qayb gasho waa tuma maasha allah habboon aad baa u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan bulshada soomaaliyeed ee adduunka daafihiisa kala joogtayna daawanaysa waxaan jeclahay inay inagula ciidaan hees aad u qiimo badan isla markaana qoysaska xaasaska weliba aad u taabanaysa kuwa isku xanaaqay xurgufta iyo shaydaanku yara kala faa'iideysto inay isku soo noqdaan guubaabinaysa heestaas waxaa sameeyey abwaankii weynaa bashiir salaad ciro
oo aad Soomaalidu ay inta badan aad u wada yaqaanaan abwaan weyne Ilaahay ba weyne oo kooxdii horseed daadahayn jiray marka heestaas oo la yiraahdo caashiqa u soo noqo ayaan leeyahay labadii isku xanaaqsaneed bal ciid fadligeeda ha isku soo noqdaan aad baad u mahadsan tahay Canab bal muuqaalka iyo heestaasi quruxda badan ee aad barnaamijka jeclaatay inaad kaga qayb gashana aynu ka wada bogano codkii baxsanaa ee Canab Cabdiraxmaan Indhadeeq
aad baad u mahadsan tahay Canab Cabdiraxmaan Indhadeeq adiga iyo heestaasi quruxda badan iyo codkaaga si baxsanba waan kugu soo noqonayaa su'aalihii iyo suugaantii dhinacaaga ee noogu hadhsanaa hadda waxaan ka degaynaa qaaradda Yurub dalka Sweden xasan wade iyo weliba shuuriyare aad baan idin salaamayaa sidoo wada jira ayaan waxaan idin leeyahay عيد مبارك كل عام وأنتم بخير سو دوادا marka koobaad aad ayaan idinku faraxsanahay ka qaybgalka barnaamijka waana idin soo dhaweynaya waan dhownahay haboon aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad nagu soo casuumto TV-ga DDSI iyo dhamaan shaqaalaha DDSI na salaamina kulli waan dhownahay walaashay haboon ugaas aad baan mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay xasan wado adaan kugu horeynayaa dhinaca su'aalaha maadaama aad tahay fanaan weyn oo rugcada ah waxaan jeclaan lahaa dhacdadii ugu naxdinta badnayd ee aad kala kulanto social media ama baraha bulshadu ay ku kulanto TV ahayd haboon ugaasay dhacdooyinka Facebook ama baraha kale bulshada laga arko ee aad u naxdinta badan wax mid la soo koobi karo maaha waxaan maqli jiray rag baastorada wata ayaa dad ku laayay meel heblaayeen maqli jir laakiin hadda waxaan arkay iyadoo live ba oo baastoradii la sitay oo dadka la iska leeyay ilaahay kuwa naga qabtaa laakiin kuwaas ay ugu daraa habeenkii wallahi kama saxan aad baad u mahadsan tahay dhacdooyinku way fara badan yihiin qofba waxba markaas cajab geliya marka waxaan leeyahay sidaad sheegtay rabbi hay naga qabto heestee ayaa jeclaan lahayd in barnaamijka aad ku daafurto oo aad markaasi munaasabadan farxadda ee muslimiintu guud ahaan ay u dabaaldegayaan aad nagala qayb gasho haboonay waxaan kaga qayb qaadanayaa hees cusub oo la yiraahdo ifraax iyo laba heesado kale ayaan soo diyaariyay telefishinka DDSI insha Allah kuwaas kaga qayb gali doonaa erayadeeda naaxiyada iyo muusikadana yaale haboonay heesta ifraax waxa sameeyay عبد الفارح نور قران وأبوان هذا سوق الهواء ده يسوي نفتي جسوا وريفي عن وهذا كنا البيضاء لحقنا يسوي عسكري aad baad u mahadsan tahay xasan wado bal muuqaalkaas iyo heestaasina aynu wada daawano ka maqle amaan daaden dhagu haddaana ii soo dhufteen oo aana ku dhuuxilayn haddaana ii soo dhufteen oo aana ku dhuuxilayn intaan dhabtii ka maqle amaan daaden dhagu haddaana ii soo dhufteen oo aana ku dhuuxilayn haddaana ii soo dhufteen oo aana ku dhuuxilayn jacayl ima dhaansadeen wadnaha ma dhadhaarilayn dhiigga xinjiroobayo xubnuhu ma dhaqaaqilayn hablana kuma dhaafsadeen jacayl ima dhaansadeen wadnaha ma dhadhaarilayn dhiigga xinjiroobayo xubnuhu ma dhaqaaqilayn hablana kuma dhaafsadeen
dhaladkeen ka helay marwada lagu dhashay dugmada faankeenu bogay marwada dhimirteen dhaxlaay laxaadkiyo dhudhumaday kubaan abideedinay igu dheerida raax igu dheerida quruxda dhaladkeen ka helay marwada lagu dhashay dugmada faankeenu bogay marwada dhimirteen dhaxlaay laxaadkiyo dhudhumaday kubaan abideedinay igu dheerida raax igu dheerida ka arkay wanaag dhehdan indhu haddaanay ku dhiiradeen oo aadan soo dhowayn haddaanan ku dhiiradeen oo aadan soo dhowayn intaan dhabtii ka arkay wanaag dhehdan indhu haddaanay ku dhiiradeen oo aadan soo dhowayn haddaanan ku dhiiradeen oo aadan soo dhowayn dareen ima dhaadhaceen kalgacal ma dhedhaadilayn jiraha dhalanaya iyo riyadu ma daboobilayn nasrina nasrina kuma dhaadanin dareen ima dhaadhaceen kalgacal ma dhedhaadilayn jiraha dhalanaya iyo riyadu ma daboobilayn nasrina nasrina kuma dhaadanin qorshaha dhaqankee istaray marwada ila meel dhigtay dhismaha aqalkee hirgelay marwada dhidibteen dhaxlaay laxaadkiyo dhudhumaday kubaan abideelinay igu dheerida raax igu dheerida qorshaha dhaqankee istaray marwada ila meel dhigtay dhismaha aqalkee hirgelay marwada dhidibteen dhaxlaay laxaadkiyo dhudhumaday kubaan abideelinay igu dheerida raax igu dheerida aad baad u mahadsan tahay xasan wado heestaasi aadka u qiimaha badan iyo midhahaasi aadka u xigmadaysanba ciid mubaarak ba ayaan ku leenahay xasan waan kugu soo noqonayaa haddana waxaan tegaynaa dalka UK waxaana iyaduna si toos ah khadka ugu jirta gabadha wadata magaca guud ee dalkaasi waa Hani UK oo iyaduna barnaamijkan munaasabada Ciid al-Fitrida marti inoogu ah Hani marka koobaad waxaan ku leeyahay walaalo ciid mubaarak waan ku soo dhaweynayaa adiga familkaaga iyo ehelkaaga waxaan idin leeyahay farxad ku ciida ku soo dhawow ESTV السلام عليكم والسلام يا دمانتين وانا دوهي habboon ugaas waad mahadsantahay walaalo waana ka aqbalay maadaama adiga codsateynaan idin maada TV-giina ciid mubaarak dhammaantiin
aad baad u mahadsan tahay hani haddii aynu u noqono dhankii su-aalaha su-aasheeda koowaad waxa weeye hani maxaad ka xasuusataa caruurnimadaadii iyo halkii aad ku barbaartay yaraantaydii aan waxaan ku dhashay magaalo madaxda Soomaaliyeed xamar gaar ahaan Buulaxoobe wadamo badan waan soo maray magaalooyin badan aan ilaahdee ay ka mid tahay Dhagaxbuur Jigjiga Diridhabe Wardheer Qabri Dahar Buuhoodle Laascaanood ilaa adigu intaan ka gaaray 6 jir 7 jir kadibna waxaan imid qurbaha oo hadda ku noolahay aad baad u mahadsan tahay heesta koowaad ee dhankaaga kaga daafurayso yaan jeclaan lahaa bal inaad adigu inoo soo xusho heesta waxaa la yidhahdaa waqti erayadii Jaabir laxankii KDB muusiga Cabdirashiid Cali Xamari aan salaamay dhamaantoodna aad baad u mahadsan tahay abwaanka muusishinka naxyadeystaha iyo cid walba oo gacan ka geysatay hirgelinta heestaasna waan u mahad celinaynaa bal hani iyo muuqaalka iyo heestaasi quruxda badan aan idin kala baxo
هتري ميان أقبلا كلون ميان أقبلا كلون مرغدي يا ما هتري ميان أقبلا كلون ميان أقبلا كلون halkaas ay noo joogto Hani UK iyo heesteedii qiimaha badnayd hadda waxaan ku noqonaynaa dalka Canada waxaan ku noqonayaa abwaankii qaaliga ahaa waxa jirta maansaad ka tirsay nolosha qurbaha iyo waliba marxaladaha kala duwan ee lagala kulmo goorma ayaad maansadaas u curisay runtii maasadaas waxay ahayd 2015 dabayaaqadeedii inkastoo marar badan la weydiiyay qaabka ay maasada ku imaatay waxay ahayd 2015 xilli aan joogay Mareykanka ay ahayd maasadaas aad baad u mahadsan tahay bal maasadaas iyo waliba naxwaha ay xambaarsan tahayna aynu kooda bogano maasada Dalanbaabi waxay leedahay jirka idbaaxiyo nafta diido qurbaha danseeg weeye itiri dalkaagii hooyo aad dad aan kula diin ahayn dad aan kula diir ahayn kulana deegaan ahayn dusha sara ka noocoo ku moodayo duul kaliya inaad daanyeer ka timid dalkooda maxaa ku dhigay maxaa dariska la dhigay maxaa dibin daabiye iyo duruuf iyo gaajo iyo adoon daal iyo ku qabin darxumo gaar iyo rafaad dalkaagi u soo nacdo qurbaha Dalanbaabiga dalli meeraysiga maxaad ugu doorataa danood iyo faafan iyo dambal iyo ayshiciyo doolow iyo laga hidiyo duudkii fiiq iyo garbiyo carmaaliya oo dambay riigii dawacaala iyo adoo degi karo shilaabo dusheeda iyo adoo degi karo wardheer maxaad u dawaaftay oo dalkaagi u soo nacdo qurbaha Dalanbaabiga dalli meeraysiga maxaad uga doorataa adaa doqonoobay duurjoogta awaare iyo daroor iyo ararsa iyo dixdii iyo caala iyo bulaaliya haradigeed naftii jarar daawata miyay daal abid qabtaa miyaan dhagax buur nin degay dareen li iseexanay dhulkuba kala dahabsanay ilaah dambigooda dhaaf daryee labadii dhalay halkay igu daadasheen daleedii dhoobo weyn allow yaa daawado daruur xudureyle iyo maraagii roob ku daay waa maracaatee maraagii roob ku daay intuu darin qaato weyn duc iyo cadalay mardhaha rabow daartii wacnayd bankii qoraxay digfeer dabuubta ku marin jiriyo dalaad iyo gabagabiya allow yaa dhuur radaga dharkaynliya daaqatiyo shaygoosh laamiga dulmara jugliya daris iyo xaraar dareenku halkuu rabiya dalxiisku wacnaa qabdahar allow yaa duulo oo diyaarad u raaca goday dalaga beer caana iyo qalaafo u sii degdega allow yaa duub xidho deegaankii raasataga digriga culimadu wadiyo intuu daalaca sarfiga quraanka daliiliyo cilmiga ay didinayaan galaanka mar soo darsada allow dooxii jigjiga wajaalo doogu baxay intuu duhurkii hargalo harooreys yaa dagoo dangiigsada aw burro intuu doonyeysta geed hartii dadab yaa ku gala allow haaraha dildila digiiran la iyo goldheer dambaska ree owle iyo dusmaalay geel ku dhalay intuu doobiga u culo higlada dambar yaa ku dhama allow duud weyne iyo laa sooliya dabakatuur macdanta baari dimdimi allow yaa doonto oo shidaalka ku duuganee liibaan ku dahaadhan iyo afdheer dahabka ku jira daboolka ka qaado oo kol dawarsiga qurbaha anigu waan daayay dhaha damiir yaa yeesho oo
diyaar maantaba noqdo dalkeenii hooyo raba maasidii deegaanka halkaas ayay kusoo afjirantay aadna waad u mahadsan tahay عيد 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 مبارك نقول عيد weli akhyaari waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeeni xiisaha badnaa ee munaasabada ciid alfitrida aynu kula ciideynay ee dhammaanba bulshada caalamka ciid mubaarak ayaan hawada idinka leenahay hadda waxaan ku noqonayaa dalka Sweden waxaana khadka si toos ugu jira shuuriyare walaalo marka hore waan ku soo dhaweynayaa ciid mubaarak ayaan hawada ka leeyahay waa dhawahay walaashay Habboon Ugaas su-aashayda haddii aan ku weydiiyo waxa weeye shuuriyare marka aad xanaaqdo amaba se cadho saayida aad dareento waa kuma qofka aad u istaagto ee hadalkiisa aad maqasho amaba se aad ku degto ee aad u xasiloonto su-aasha haddaanan ka gaban oo sida tahay aan u abaaro qofka koowaad aan jeclahay in aan markaas la kaashado ama aan isdhihi karo uu ku bedeli karaa ama xamaasadayda uu dejin karaa aan isdhihi karo waa waalidkay khaasatan hooyaday aad baad u mahadsan tahay wax la xurmeeyo hadalkoogana la dhageysto waxa ugu qiimo badan waa waalid aad baad u mahadsantaan ku leeyahay munaasabadan heeso qurux badan ood waqti gelisay ayaad ugu talagashay bal markaa heesta koowaad ee aad dhankaaga rabto inaad kaga qayb gasho erayadeeda naaxiyada iyo dhinaca muusikada heesta erayada waxaa sameeyey abwaan saaxiibkay ah oo jooga magaalada Jigjiga Cabdiraxmaan Fiili laxanka waxaa saaray walaalkayga weyn Qaasim Macruuf muusikadana Axmed Wali Funle aad baad u mahadsan tahay heestaasina aynu wada daawano ee daawasho wacan ranta anigu rafaadasan rubaca jilaalka ooman rumaysan jacaylka raacsan ayaan helay ruux hagaagisan ranta anigu rafaadasan rubaca jilaalka ooman rumaysan jacaylka raacsan ayaan helay ruux hagaagisan badanana been jeclaysan asturan rabbigeed yaqiinsan ralliya tukato xijaaban mid aan kibireenka guuxin rasmaan helay ii hanuunsan badanana been jeclaysan asturan rabbigeed yaqiinsan ralliya tukato xijaaban mid aan kibireenka guuxin rasmaan helay ii hanuunsan midaan rifin diirka siibin midaan rifin diirka siibin cishooda reerkooda dhaafin mid aan rasidiisa qaylin waxaan helay dahab rasaysan midaan rifin diirka siibin midaan rifin diirka siibin cishooda
reerkooda dhaafin mid aan dhahsidiisa qaylin waxaan helay dahab isaysan جلبيسن ربتي عاشقا وهلن ريوضوها بين نصيحن أيان هلي راس نمعيسن نور أهان جلبيسن ربتي عاشقا وهلن ريوضوها بين نصيحن أيان اللي راس نمعيسن راحان دح مقورتي كورسن رستوق اللندقي أقباتسن رستوق اللندقي أقباتسن انتان رعب كوستي كوسن أيان رمضنا لي دورسن راحان دح مقورتي كوسن رستوق اللندقي أقباتسن رستوق اللندقي أقباتسن انتان رعب كوستي كوسن أيان رمضنا لي دورسن ميدان رفين دير كسيبين ميدان رفين دير كسيبين عشود ريركو دافين ميدان راسيدي سقيلين وحان هلي دهب اسويسن ميدان رفين دير كسيبين ميدان رفين دير كسيبين عشود ريركو دافين ميدان راسيدي سقيلين وحان هلي دهب سيسن aad buu mahadsan yahay shuuriyare intaas aynu kaga nimaadno hadda waxaynu ka degaynaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaana magaaladaasi aanu kaga casuunay barnaamijkan fanaan aad u codbaxsan khadar keyo waxaan ku leeyahay ciid mubaarak ku soo dhawow ESTV waan ku dhawahay walaashayda habboon ugaas aad baan ku salaamayaa marka xigtana waxaan aad u salaamayaa shacabka ku nool Jigjiga oo aan aad u jeclahay mar uu na soo gaari doono waxaan kale salaamayaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ayaguna ciid mubaarak aan dhihi lahay meel walba adduunweynaha ka joogaan ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqo Allah inagu wada gaarsiiyo dhammaanteennaba maasha Allah muuqaalkaaga iyo qaabka adigu ciidii sidii loogu talagalay ayaad khadaro ugu ciideysaa bal marka ayaad jeclaan lahayd munaasabada ciida ama maalintani farxadeed in aad la qaybsato oo aad la ciido waxaan jeclahay maalinta ciidii inaan waqti la qaato shacabkayga quruxda badan iyo my family-gayga oo aan la ciideysan doono insha Allah aad baad mahadsantahay su'aasha xigta haddii aan ku sii socdo
maadaama waa tahay fanaan dhalinyaro ah oo aada u fiican mustaqbal faneed amaba se hami faneed oo qurux badan hiigsanaya ma jiraan dhaqamo aad kaga dayato fanaaniinta ajnabiga ama reer galbeedka ma jiraan fanaaniin ajaanib ah aan ku daydo balse wax aan ku daydaa fankii hore hobolladii hore fanaaniinteeni hore oo aan jeclahay inaan fankooda dib usoo cusboonaysiiyo ama la nooleeyo marka fanaaniin ajaanib ah kuma daydo fanaaniinteeda Soomaaliba iga tiro badan ayagana 100% boqolkiiba boqol ku wanacsanahay aad baad mahadsan tahay waa run oo waxaba ka badan ba fanaaniintii Soomaaliyeed iyo waliba qaab dhaqankoodii marka waad ku mahadsan tahay inaad ku hamiyeyso fanaaniintii hore inaad dib usoo cusboonaysiiso heesahoodii aad baad mahadsan tahay heestaad inoo soo xuli lahayd ee aad ugu talagashay barnaamijka waa hees cusub oo aad ugu talagashay munaasabadan cusub inay la kuusato waxaan jeclaan lahay barnaamijkan aadka u quruxda badan inaan kaga qayb qaato hees cusub oo hadda soo baxday ayadana gooni socod la yiraahdo aad baan u salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad shacabka reer Jigjigo ciid mubaarak ciid wanaagsan aad baad mahadsan tahay bal heestaasi cusub ee fanaanku qaadayana aynu wada daawano garab iyo inaan gashaan kaligeed ku go'ay umay buuxino
garab iyo inaan gashaan keligeen u go'ay umay guuxiyo gaabsan waayayo maankayga daadi ku jeynayo gaabsan waayayo maankayga daadi ku jeynayo kula doonay gaabsan waayayo maankayga daadi ku jeynayo gaabsan waayayo maankayga daadi ku jeynayo goni socod gooraha noqdo hubay miyaan goni socod gooraha noqdo gudcur iyo miyaan alla gudcur iyo miyaan gogol maran hurdaa hubay miyaan goni socod gooraha noqdo goni socod gooraha noqdo gudcur iyo miyaan gudcur iyo miyaan gogol maran hurdaa